akhyaarta sharafta leh ay saad u jeedaan waxaa jirta kumanaan kun oo qof oo ku nool dalka Mareykanka oo qashinka ku nool dhismahan sii jeeda waa dhismaha cuntada iyo khudaarta lagu gado waxa uu soo tuuraa oo halkaan ku soo daadiyaa qashinka oo iyadoo waxyaalaha dhaca iyo waxyaalaha aysan u baahnayn ee waqtigooda u dhamaaday dadkan cadaanka maalin walba waxay qashinkan ka gurtaan cuntooyinkaas noocyada kala duwan saad u jeedaanba waxa ay qaateen waa nooc kamid ah liinta ayay wataan iyo khudaar dhacday hadii la gudmaayo wiil iyo aabihiis sida ay u muuqato ama awowgiis gaarigooda ayay saaranayaan sida aad u jeedaan marka hamoodin America inay tahay meel lagu dhargay ama maaragtay ay malaayiin dollar ay dadsan tahay dadku waxay ku nool yihiin qashinkaas dadka Soomaaliyeed oo halkaan yimid boqolkiiba 88 ama 90 waxay qaataan food stamp wax loo yaqaan ama cayrta laakiin qashinka kuma noola dadka Soomaaliyeed saad u jeedaan dadkani waxay ku nool yihiin qashinka waa dad Mareykan cadaan ah waxaana ay ka guranayaan ay ka quudanayaan waxyaalaha halkaan lagu soo daadiyay baad iyo biyaba saad u jeedaan cuntooyinkii la soo tuuray hambooyinkii la soo daadiyay iyo wixii dhacay ayay halkaan ka guranayaan saad u jeedaanba dhageystaha qiimaha yaqaayada oo isdhihin Mareykan dollarka ayaa wadooyinka daadsan haduu daadsan yahay dadkan u dhashay dalka Mareykanka ayaa ka guran lahaa waa khudaar dhacday ama caleenta hadii ay ku noocyada caleenta hadii ay ku maayo sida ansalaatada iyo wixii lamid ah oo dhacday oo qashinka lagu soo daadiyay ayuu halkaas ka guranaya sad u jeedaanba marka waa laga noolaaday qashinka dalka Mareykanka kaas wuxuu ahaa miskiinka alla oo kaaga soo dabiy inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun baa ila ku qoslayo yaani waxaan shalay ka haystay anigu hadii aan ka aaminsanaa hadii ay ku idmaayo America iyo sida xaqiiqda ay tahay America ismalaha oka hadii ay ku idmaayo dhalinyaradoodii aan qashin ka cafinaynin oo qalan qashin kale horgufaayay ka u dhacay dalaq halkaas ku nool maalin walba xilligan oo kale markay tahay 5-6 o'clock qorraxdu si dhacayso asar liiqi ayay yimaadaan isdhihin America waa meel barwaaqo laga daldasho cunto free waxay dhaan there's no free lunch dad dargay iyo dad gaajo u dhintay intaas ay u dhaxaysa America ha ku soo khaldamin taariibka jooji uriyaaga joog xoolahiina kalluunkiina beerihiina fasha gurta qabyaalada iyo qurunka daaya dharga dalkiina ka dharga wabillahi tawfiiq miskiinka Allah oo ka soo warramaya hamaha qashinka ee dalkaasi Mareykanka intaasaan ku qoslay ma kuma qoslin dadka fuqarada ee masaakiinta ah ee qashinka ku nool ilaahay bani aadamka oo dhanba meel kasta joogaan xaqoodiyo hana dharjiyo hana caafiyo hana nooleeyo laakiin waa warbixin aan idin ka siinahayo dalkaasi Mareykanka wa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh miskiinka Allah iyo ama qashinka dalkaasi Mareykanka mucaaradka waan leenahay nolol bad noo diideen naga daayaqaha iyo qaracanka iyo qaraxa iyo dabad ilifnimada iyo inaad noqoteen gaal raaciyo dabad ilif ah oo jaajuusiina oo u gargaaraya Kenya iyo Ethiopia inay badeena iyo birigeena ay dhacaan Abdiraxmaan Cabdishakuurow wali maada quusan dad ku sacbatuma ayaad heshay hadartaan adii Umar Cabdirashiid oo dalkii salita gaday lacagtii imaaraadkan hadda wata qarax ki aad wadeen fiqigi dhaaranayay bal dadkii naas yaad xukumaysaan yaa idin raba yaa idin baahan waad fadiixowdeen ilaahay ba idin fadiixeeyay ilaahay ba banaanka idin keenay ilaahay ba idin duleeyay ilaahay subhanahu wa ta'ala madaxweyne xasan sheekh maxamuud asawna raali buu ka yahay waxa dhacaya waa ognahay waa la soconnaa damul jadiid dabad ilifnimo iyo qarax iyo qaracan ayay wadaa wax al-shabaab la yiraahdo meeshaan ma jirto qaraxa siyaasiyiinta imaaraadku soo tirsaday ayaa wada وانا من لمده قرحه اماراتكو اي كودان ليبيا يمن سوريا عراق السودان ميل walba ay ka wadaan kama duwana waa ki awayaan dalkiina iyo dadkiina iyo diintiina waad gadateen qax iyo qaraca madna dadkiina badeen ilaahayna waa idin jeeda wama Allahu bighafilin amma ta'malun miskiinka alle iyo hama qashinka dalka Mareykanka wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh